fanaanka iyo quruxdan iboy kugu jeclaado hablahaad sidata haybadiyo asluubte dahamiyey dartaaro habeen socod ku waasho waxaan eegataanoba hawada sariiqi fanaanka iyo quruxdan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد صوماليات السلام هالكان وحا تاجنا مانت برنامج آد وقرح بدن وآد دي حيس جلين دونا أو برنامج فنيت أما برنامج تاريخي وقصاصا فنانك وين هليجا صوماليات أهنا فنان كسوجيدو ديجان أهان koonfur galbeed gaar ahaan degmada Diinsor oo bartii uu ku dhashay magaalada ay tahay fanaanka haddaan idin wada sheego waa fanaan aad noo qaali ah fanaan had iyo jeer Soomaalidu aad ugu faanto oo halyeyna ah magaciisuna ayuu yahay Xasan aadan samatar taariikhdaas Xasan aadan samatar waxaan rabnaa inaan wax idinka soo sheegno oo idin soo gudbino maanta channelkeena ah Hamu 21 channelkaas waxaan idinka codsanaynaa inaad noo subscribe-aan oo maaragtay share-ta iyo like-tana aad noogu deeqdaan aadaan idinku mahadcelinaa. waxaan rabaa marka inaan gudagalno barnaamijkii oo waxaan la joogo taariikhiyan in taariikhi ah oo runtii taariikhda inta badan Soomaali wax badan ka og oo maaragtay macalinna ah ustaadna ah abwaanna ah ninkaas oo ah oo maanta garabkii jooga oo ah abwaan Ustaad Maxamed Cabdullaahi aadan Ustaad garaar loo yaqaano kusoo dhawo barnaamijkan Ustaad. السلام عليكم. وعليكم السلام وسود وعيفلان أي waxaan wax ka weydiinayna maanta barnaamijkan oo in badan dadka reer Diinsor iyo Soomaalida kale ay aad u wada sugayaan oo ah taariikhdii fanaanka weynaa ee Xasan aadan samatar bal wax yar Xasan waqtigu uu dhashay iyo meeshii uu ka dhashay taariikhdiisa adoo noo dulmaraya. waa mahadsan tahay dhammaan dadka dhageysanaya waa salaamaya inta jecel ama aad u garanaya الفنان حسن aadan samatar ayagana waa salaamaya isagana waan salaamaya. حسن aadan Diinsor ayuu ku dhashay qiyaastii 2000 waxaan leeyahay 1953 ayuu ku dhashay baan maleyn Diinsor 1953 waa marka Xasan Diinsor ayuu ku dhashay sanadkaas uu dhashay wuxuu waxbarashadiisa dugsiga hoose uu ku dhameystay degmada Diinsor dugsiga quraanka Diinsor uu ku dhameystay dugsiga dhexe Diinsor uu ku dhameystay dugsiga hoose dugsiga dhexe ayuu Baydhabo u tagay markuu waxay xilligaas waqtigii oo Talyaanigii la dhiganay ahayd dhalinyarada badanaa waxay aadayeen scholarship u aadayeen Talyaaniga oo Alivi Ufshaal ayaa la dhihi jiray ay aadi jireen ciidamadu ku biiray weliba waxaan u maleynayaa qaybta isgaarsiinta inuu ahaa ciidamada ayuu ku biiray. Xasan Baydhabo joogay isagoo askariya militariya marka wuxuu ka mid ahaa fanaaniintii Baydhabo waagaas joogtay 72 Baydhabo ayuu ka tirsanaa. Baydhabo isagoo jooga ayaa wuxuu galay heesaha hirgalay heesii dhibmus oo imaan doona waxaan wax ka weydiinaa Xasan ka Diinsor ahaan magaalada ku dhashay waay waxaa wax noo sheegtaa marka xaafada kamid ah uu ka dhashay iyo goobta uu ku dhashay. Xasan wuxuu ku dhashay Diinsor xaafada Waaberi laba xaafadood ee Diinsor masaajidkan jaamaca agtiis macnaha jidka inta ka soo maraya wixii dhinacaas ka jira Waaberi ayaa la jiray wixii xaggan waqooyi ka soo xigana huluudaaga la jiray Waaberi ayuu ku dhashay waliba laanta xaawataaka ayuu ku dhashay meesha ayuu ku soo koray. waa hagaag waxaan rabnaa inaan wax ka weydiino Xasan goormuu fanka soo galay taariikh ahaan ma haysaa
fanka wuxuu soo galay 70kii weliba baydhabo meel ku taal oo meeshan Sheekh Ibrahim hadduu dhistay oo masaajidka weyn banaankiisa ayaa baar ahaa heesa ayaa la soo saari jiray rikoor lagu duway heesahaas waagaas 70kii oo kacaanka markaas uu dhashay ayuu heesaha qaadi jiray fanka laakiin soo gelitaankiisa weyn 71 ahayd وهاك هستيس ugu horeysay oo markaas uu ku matalayay ama ku soo galay fanka wax yar ma noo taan ka taamisa ereyadeeda ama wax ka haysa Xasan baydhabo markuu joogay heesa badan uu hoteelada ku duubi jiray baarar ku duubi jiray laakiin heesta hadda la xusaayo oo fankiisi ugu weyn uu ku soo galay waxay heestii hanaanka ama hadda diido hadalkayga marka heestaas waxa sameeyay ilaahay u naxariistan intay oo liiraah maxamed Umar Nuur ayaa sameeyay ninkaas heesa badan oo maxamed Nuur uu sameeyay buu qaadi jiray heestaas ayuu tiyaatar ku galay habeenkaas tiyaatarka uu galay diisor waxaan u maleynayaa dhalinyaro markay ugu yartay 60 ayaa ka baxday oo meesha tagtay macnaha meeshaas waagaas waxaa jirtay goboleysi ma jirin qabiil ma jirin wax kale goboleysi ay ahayd inta waxaa laga dabaaqtamay Xasan amuu yiraahdaa baydhabaan ku dhashay amuu yiraahdaa أحمد على العسكري لهاي أولياء آياتيات كجوجي مركي الورثة دينصور وكل شيء ويري غير بينهم واني الجبان غير دينصور واقف فرحان. يعني وحان رمنا حس وحاجرته وهرو قاضي حسن أينا يتهيد ديجان كان أنا جوجنو دويو ويريرو دويو ونيني. حساس يا ألفي. حساس وعاء ألفي مختار محمد يرو إلهه ونحرسته ayaa sameeyay heestaas marka hore abwaanku wuxuu ugu talagalay diinsor iyo agagaarkeeda ayuu ugu talagalay deegankii diinsor buuro ka dad buu ay ku ekaad Xasan oo diinsor yimid fasax u yimid ayaa wuxuu yiri qisadan huburow hal soo geliyo yiri ma garatay ha lagu dar sheekadan sida loo bedelo marka meesha ayay ka bilaabanaysay macnaha sahal macallin ciise markii uu aaday Sacuudiga heesti ugu dambeysay uu sameeyay waxay huburow imaanka yaa ani haweydiye aan joofto injigna iritay hasaarade sidaas ugu baxay sanadkii markaas la qaaday heestaas ma xasuusta waa 73 saan qiyaasay asiyatan 83 dadka qaar waxay isweydiiyaan ereyada ah wanini macnaheeda yani adoo bal u fasirahay weerow wanini waninka waxa waay wax biyo lagu dab la saaray surfiyada dab la saaro oo biyo lagu shubo waa wadiinta waxa way biyo gadoomiyo wanini waxa way heestan intaan la sameeyay koor bay jirtay beeraha marka laga imaado oo la soo socdo weerarowdo wanini macnaha ciyaar dhaqan ay ahayd sora baydo waxay leedahay wariiriyo baal wali dhiyaw dhugunsoy ay dhihi jireen annagana waxaan dhihi jirnay weerarowdo wanini halqabsiga xageeyay ma jirta Xasan markuu fankiisa saas u hirgalay oo ayadoo isla dawladii ay jirto inuu mar kale soo laabtay diinsor uu show ka qabtay ma jirta Xasan dhowr jeer soo imaaday waxaan u maleynayaa wareysi Ismaaciil Hirir uu siinay waxay ahayd Safiya samatar markii ay u shaqaadanaysay meeshan golaha mursida tiyaatarka ay ahayd asoo la garaacay baa ku wax lagu garaac goobtaas ay waxay u maleysay run gabar yar ahayd waa dhaxbooday marka Xasan dhowr riwaayad uu keenay wuxuu keenay riwaayadaas ahayd garcadaawi caashaq ayuu keenay wuxuu keenay guur ama guurso ayuu keenay dhowr riwaayad uu keenay maxaa mar walba asagan fasax uu imaanay aroos uu yimid fasax uu yimid duqa bid xuskiisu imaan jiray hadii 2 bilood 3 bilood haduu maqnaado Xasan waa imaan jiray haatan fanki wili uu ku jira mana ku jiro Xasan laakiin ummadda uu ka soo jeedo qaasan deegaankan maxaad yani u sheegaysaa ama aad leedahay oo ugu dambeyn barnaamijkan joognaa horta waxaan leeyahay dad waxaa jira oo Xasan cadowgiisa ah oo mar walba soo duubay dhahay Xasan aadan waa dhintay iyo Xasan aadan tacbaan way saxaraad way alla dilaa dhinta ma gartaan Xasan aadan waqtigiisa ku dhimanaya Xasan waa nool yahay fanki wali raadu ku leeyahay laakiin marka nin oday noqday annagaaba odayaal noqonay nin oday noqday fanki inuu ka fariisto waa laga yaabaa
laakiin wax dab oo masrax uu taagan yahay oo wax fasaada uu sameynay ma jirta marka diinsor waxaan leeyahay u duceeyo khaatimad ilaahay u suubiyo walaalkeen waay saaxiibkeen waay nin aan jecelnahay waay markuu diinsor waa iska faraxsan tahay asaga ma oga ayagana laakiin waa faraxsan yihiin marka calaa kulli xaal xasan jabuuti jooga ilaahay dhuray ismaaciil umar geelin waa u taaniyeynaa ninkaas walaalkeen oo saaxiibkeen oo fannaankeeni ah ayuu soo dhaweeyay isagii marwadiis waa u maryeynaa aad iyo aad u mahadsan tahay ustaad abwaan maxamed cabdullaahi aadan ustaad garaar daawadayaal barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii oo ahaa taariikhda ama fanka xasan aadan samatar oo iyadoo weliba ay tahay maaragtay waqtigiisii curashadiisii iyo fankii iyo waqtigii uu dhashay iyo xaafaduu ka dhashay iyo degmaduu ka dhashayba intaba mar kale waxaa idin leenahay daawadayaasheena channelkeena hamuud 21 inaad noo subscribe garaysaan oo like iyo share aad noogu deeqdaan waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan idin leenahay tan iyo kulanti dambe oo barnaamij kale oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سفاد مليت عيكوي وانسداي إلى قابو صدقوا إلى قابو